السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. soo dhawaada asxaabta, halkani waa aeroboortada magaalada muqdisho. maanta waxaan go-aansaday inaan ina dalxiisiyo maadaama muddooyinkan aanaanba dhaqaaqinba oo maaragtay naga fadhiyay youtube-ku howlo kalena anigana aan iskaga mashquulsanahay. soo dhawaada mar kale. wakaa dadkii aan la socday, anigu dadka waanba ka dambeeyaba. markaan baan soo gaaray meeshii diyaaraddu taagneed. insha allah marka bal maanta waxaan tegaynaa magaaladii guraceel ahayd. haddana meeshaan ka baxayno waa aeroboortka magaalada muqdisho. insha allah soo dhawaada mar kale. waa kaasa halkaa baan fadhiyaa, ninkaa awowaha ila fadhiyey. diyaaradda gudaheedan ku jirnay, markaabaan dhaqaaqa diyaaradda waxaanba isdhahaba maba la dhaqaba sababtoo ah waaba wasaqba maaragtay miraayadaheedu. anaguna dee ma aanan wadanin kaamiramaan, oo aniga unbaa kaamiramaan ahay, aniga unbaa editor ahay, aniga unbaa wax walba isku ahay. marka asxaabteydana waxaan isdhahay dee horta waxaad samey jirtay wax ka duwan u sameeyo, bal isbedel samey maanta. hadda baan dhaqaaqnay oo diyaaraddu weli dhulka bay ku socotaa. mar kale aniga inaan dadka istusdo waaba kululaadaba. markaabaan gashtay diyaaraddu malahan mukey fiicanba malahanba. anyway guys, insha allah waxaan rajeynayaa inaad ka heshiin kolleyba kilibkan. asxaabtana soo dhawaada inaleeya mar kale, muddaan kala maqnayne. bulsho yahay ma nabadba. xaggani marka waa magaalada banaankeedii oo waataasa haddaan runwaygii aadnay. marka guys, wallaahi horta abaalkiina sooma koobi karo niman yahow. sababtaasaana keenaysa inaan dee aan isla dalxiisnoon maanta aan iska dhigay nin waxgarad ah. laakiin adinka ayaa iga horreeyeyo ibaray dee in wax lees taro, adinka iga horreeyey. marka soo dhawaada, halkaas baan maraynaa. waxaan u malaynaa markaan baan kici doonaa oo diyaaraddu kacaysaa. baddii iyo waxaa naga horeyda berrigii intaba. by the way guys, horta cudurdaaraan wataa, ha layga raalli ahaado maadaama ayaantaanoo dhanba mashquul kale iyo howlo adduunyo kale ay ila hareen oon idin soo xasuuso waayey. laakiin waxaa ka muhiimsano mar kastaba waa ii joogtiin, adinku taageerahayga tihiin, aad baa u mahadsantihiin. meeshaan hadda aan joognaa ama aan maraynaa waa aeroboortka. haddaan ka baxna waa ka hadday kacdo diyaaraddu. waxaasna baddii weeye oo waa baddii. fiyugeed aad u qurux badan yahay, waa maasha allah. waka dee haddaan hawada galnay. waxaan tegi doonaa amaan arki doonaa berriga xataa, laakiin baddaan hadda ku raaxaysanaynaa. isha aad bay ugu rantaa. alla muxuu wadankeena wadan yahay. halkaas gudihiyaan ku soo celiyey. halkaa baan fadhiya anigoo kululaaday. ninka adeeruna wuu ila joogaa, dee ninkaasaba meesha ku saaxiibnay. baddii haddana waa taasaa fiyuga ku raaxaysta. caadkiya olmost aan galnaba. haddii markaan degayno baan isku dayi doonaa inaan tuso. waxaan waa magaaladii xamar ahayd. waxaa ku aadan kaameradana waa caad. waxaa maqli jiray caadka ka kormaray. caadka baan ka kormarnay. magaaladii oo camiran waa taasaa. dee waxa cawir raada keenana waa caadkii iyo miraayadoo nadiif ahayn oo miraayadda diyaaradda. laakiinse wakaasa oo sawirku aad buu u muuqanayaa. marka daawasho wacan dee wax yar insha allah iska fiirfiirsada. waa isu soo laabanaynaa wax yar ka bacdi insha allah. fuyugaas ku raaxaysta guys. unaseda tahay daruur uno iyo deegaan iskal
una daawashadaayendho unayaadinka daaliwa unay ragga dunida joogadanka dalbaday unay nin rage daacado una waxaa tahay dulbadan una daakharada qalbiga una tidaabibtaada una niyadidaalanay una tidawaysaadahay una dawga saxan midikii una ila doontaadayd una weedha dabacsankii una igu deeqaadahay una dagaanantaada iyo una dabcigiyo aqliga una doqon dumarkace heebtooda doondoonayo una deebjir mooyaane deele kuma dafiro una dulmi waade marnaba una daa'imna mabade una dardargali jaace elkeena oo dadahe una duulashi caashaqe enu inay soo degaan una dayrin geelo dhashiyo una dunya waan kala bix una daar qurxoonoo dagtana una ku diyaar beeyihiin una dhuuxo waadii darata una sawdantaydii magabe una duusi beerashadii una sawdadaalkii madhigi una seeda tahay daruur una iyo degaan iskale una daawashadaayendho unayaadinka daaliwa unay ragga dunida joogadanka dalbaday unay markaana waan soo dhowaanay oo waxaan u soo dhowaanay dhankaas iyo Guraceel dabcan hawada kore baan ka imaanay wakaas diyaaradda xitaa lugaha way fidsatay dabcan marka xiliyadan waxaan ku jirnaa inaan ka soo degno airportada Guraceel diyaaradda dadkii Dantino way sii socdaan soo ma jeedaan geedaha way soo dhowaanay marka guys kale gudubkii ma sha Allah waa imaanay doqon dumarkace heebtooda doondoonayo una deebjir mooyaane deele kuma dafiro una dulmi waade marnaba una daa'imna mabade una dardargali jaace elkeena oo dadahe una duulashi caashaqe enu inay soo degaan una dayrin geelo dhashiyo una dunya waan waan soo dhaadhacnay waan soo dhowaanay haddadan baan rajaynaynaa inaan cagaha dhulka ugu soo garaacno waa kaas way degtay diyaaradda marka ma sha Allah weeye alxamdulilah ilaahay waana nabad keenay markaan bay diyaaraddu dhulka cagaha la heshay haddee markaan de waxaa cabsi waayaba meeshaan jay uunbay ku ordaysaa annaguna waxaan leenahay allah yow nagu nabadgey asxaabta haddee laygta iyo sheerta yaan laydinka weynin insha Allah waxaan raadinaynaana ama aan mar kastaba ku rajo weynahay mar kastana aan rajaynayno waa uun ilaahay ka sokow adinka weeye way degtay diyaaraddu waxaa ciid guduudkii amaan cagaha la soo helnay alxamdulilah insha Allah waxaan rajaynaynaa marka inaan markaan tagno Guraceel magaaladii halkaa baan istaagi doonaa halkaa guryihii iyo meeshii migrationka airportka waaba maasha Allahba weliba inkastoonan imaanin hadda ka hor laakiin airportka waa airport beel
eraboorka Dhobley ka mid dhigto oo ka khatarsan yahay waa maray waa ninkii eraboorka Dhobley iyo eraboorkan soo arkayo soo hadal aan ogaanaynaa labada eraboor midka khatarsan anyway guys waan imaanay mar dhow baan degi doonaa banaankaas baan dadka ku wareeriyay gudahana waan soo gelinayaa si aad u aragtaan waana kanaaho haddana dadkii way kala farxanayaanba qof walba wuxuu dafayaa boorsidiisa anigana odag waa kanaa waa soo degnay diyaaradii banaankeeda dee waa ka baxnaba iga bixi nin walba carara ka dhacday alxamdulilah odag waa kanaa halkaa dadkii sababay u firxadeen markaana wadadan soo qabsanay waxaan u soo soconnaa dhanka iyo magaalada cabaar ay u jirtaa maxaa la dhahayay eraboorka suma dhowa halkaasayo dhulkuna iska cagaaran yahay alxamdulilah ilaahay baa barwaaqo dhigay ninkii maanta dalxiis u imaanaya u imaan karaa inkastoona aniga uusan ahayn aniga ahayn danteydu dalxiis oo dana kale aan lahay haddane asxaabteydu waxaan isdhahay dhulkaad marayso baa la wadaago war ha laga hayo marka waxaan gabadh magaalada baan geli doonaa haddana qabowgaas iyo dabaysha ku sii raaxaysta guys una seda tahay daruur una iyo deegaaniskal una daawashada indho una yaadinka daaliwa unay raaga dunida joogadanka dalbaday unay nin raage daacado una waxaa tahay dulbadan una daakharada qalbiga una tidaabibtada una niyadidaalanay una tidawaysadahay una dawga saxan midiki una ila doontaadayd una weedha dabacsanki una igu deeqaadahay una dagaanantaada iyo una dabcigiyo aqliga una doqon dumarkace heebtooda doondoonayo una deebjir mooyaane deele kuma dafiro una dulmi waade marnaba una daa'imna mabade una dardar gali jaace elkeena oo dadahe una duulashi caashaqe enu inay soo degaan una dayrin geelo dhashiyo una dunya waan kala bix una daar qurxoono dagtana una ku diyaar beeyihiin una dhuuxo waadi darata una sawdantaydii magabe una duusi beerashadii una sawdadaalkii madhigi halkan baan magaaladii ka soo galnay iminkadan waan soo dhowaanay magaaladii ku jirnaa insha Allah alxamdulilah waan leenahay magaalada inkastoo dhinaca maba u bixinba meel aan waa ku ogaa jiray bay joogtaa waxaan saas u sii badnayn baa lagu daray laakiin maasha Allah magaalada dadba ma joogo oo dadku ku yaryahay mar baan si fiican insha Allah gudaheeda u duubi doonaa laakiin si hadda waxaa weeye dadku kuma badna oo waxaad moodaa inay dad la-aanta inkastoo maalin adoo adiga duhurku dhawaad meelahaas ay ahayd oo duhurka lagu sii dhow yahay dhinaca waxaan ka soo galnay dhuusamareeb xaggeeda baan ka soo galnay saad la socotiin ama dadka garanaya ama dadkaba aan garanaynin
oka hadda jaamkii baan soo galnay magaalada dhexdeeda bas baan duubayay anigu baytawey bajaajaaba taalaba laakiin uma badna sida muqdisho ee saxmadda u taha uma ahan niyow dadkii laakiin intay ka aadeen baan garan lahay meesha la yidhaahdo soomaaliya dadkii meeshay aadeen baan garan waayaba duurkay kala jiraan dadkii waaba ka maqan yihiin waddanka sababtoo ah meeshu wax jooga soo ma jeedi dad magaalada goynaya qof dhif unbaad u jeeda ee baabuur soctay waxyaaba noocaas laakiin dadkii badnaay oo yaacayay meesha maba loo jeedaba dadkii yaaci jiray oon arki jirnay maba jiraan ilaahay amarkiis dee marka insha allah guys hadda meeshaanaan maraa magaalada dhexdeedii waa argada marka ina tuso baan insha allahu nabaday inin dhihi doonaa laakiin intii ka horeyda waa kaa hadda argadian kusii dhowahay argada waan kusii dhownaa meeshaan magaalada dhexbartankeedii waa barta magaalada dhexbartankeeda fiyaalihii baa la yidhaha meeshaan guracaalda inaan joogo hadda unbaad rumaysanaysaan laakiin intii hore oo dhan guracaal baan u socdaa baan inin dhahayay ninkii aan aqooniyo qoftii taqaanay qofkan aqoonba wuxuu arki doonaa argadaas soo ma jeedaan welcome to xagee la socda xaaladaha waa ina salaamayaa soo dhawaada insha allah haddee waa isla soconaynaa guys insha allah waxaad jeceshihiin iisoo sheega oo jeceshihiin inaan soo duubo haddii alla idmo videogan qofkii aragta like shareta comment igu soo qor waxaad jeceshahay aan isdhiirigelino aan isdhowrano waa ina salaamayaa asalaamu calaykum una seda tahay daruur una iyo deegaaniskal una daawashada indho una yaadinka daaliwa unay ragga dunida joogadan ka dalbaday unay nin ragga daacado una waxaa tahay dulbadan una daakharada qalbiga una tidaabibtada una niyadidaalanay una tidaawaysaadahay una dawga saxan midikii una ila doontaadayd una weedha dabacsankii una igu